kulan wacan wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta wada nagal xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogta waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa wararka kooban oo naga soo gaadhaya dhanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dhanba geeska Afrika qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa xilka qaadis ku sameeyay qaar kamid ah madaxda ugu sareysa dowlad deegaanada aan idhaahdee dalkaasi Itoobiya waxaa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa heshiis la filayo dhawaan dhex maro qowmiyadda Tigreega iyo waliba Amxaarada kaasi oo la tilmaamayo inay gebi ahaanba u heshiin doonaan sidii ay xukuumad u tuuri lahaayeen qowmiyadda Oromada oo haatan ku naaloonaysa xukunka dalkaasi Itoobiya hadaba heshiiska qowmiyadda Tigreega magaalada Makale ee caasimadda deegaankaasi ayaynu daawadayaal ku lafaguri doonaa waxyaabihii ugu dambeeyay dhanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba xaaladii ugu dambeeyay laftigoodu kaba manaa iyo waliba gobolka City oo la tilmaamayo in nimankii lagu magacaabi jiray daraakirada ay wali wadaan wax lagu magacaabo dibudajin ay ku doonayaan dhul balaarsi ay ku qabsadaan gabi ahaanba galbeedka gobolkaasi City waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aan ku qaada dhigi doonaa xogo hor leh oo ka soo kordhaya shirki ku fashilmay ambaba ku saqiiray magaalada Ankara ee caasimadda aan idhaahdee dalkaasi Turkiga iyo waliba oo shirka loo madlan yahay inuu dhaco bisha September ee fooday nagu soo haysa qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaynu daawadayaal ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena waxaana barnaamijka ila qaada dhigi doona saaxiibkay Dr. Shido asagoo inta badan indhaha ku hayay xaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya iyo guud ahaanba geeska Afrika Shido soo dhaw waa dhawaay saaxiibay maxaa ugu dambeeyay hadii aynu ku horayno bal horta xafiiska ra'iisul wasaaraha xilka qaadis buu sameeyay bal deegaanka Tigreega iyo Amxaarada waan u gali doonaa laakiin maxaa ugu dambeeyay aad iyo aad baad u mahadsantahay Cornel Faragodow ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed talaabo culus ayuu qaaday oo xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweyne kamid ah madaxweynayaasha dowlad deegaanada dalka Itoobiya ra'iisul wasaaruhuna waxaad moodaa inuu hadda talaabooyinka uu qaadayo inay yihiin kuwa kuwii hore wax badan ka bedelan oo markii ugu horeysay Abiy Ahmed intuu xilka qabtay la dhihi karo madaxweyne dowlad deegaan oo golihiisa Filistiin iyo golihiisa dhexe ayna xil ka qaadan oo asagu gacantiisa uu kaga xayuubay oo ku dhawaaqay in uu sharcigu u fasaxayo oo sharciga sareyntiisa iyo maartay ogolaanshaha uu sharcigu u siinayo in loo baahday inuu maamulkaasi uu isbedel ka sameeyo dalka Itoobiya sida ogtay qalalaasa siyaasadeed aad u weyn ayaa ka taagan oo dhanka aad artay amniga ah oo dawladdu waxay wajahaysaa dagaalo culus oo kaga imanaya deegaano aad u badan oo dalkaasi Itoobiya oo ogsoonahay sida deegaanka Oromiya Axmaarada Tigreega Gambeelaha Benishangul Gumuz dhammaan dalka Itoobiya marka la dhaho iyo deegaanka Soomaalida Anfarta oo soo fadhiyay oo waxba joojin waqtigeedii oo dhammaan ku jira mooyaan dalka Itoobiya oo dhan dagaal ahli ah ka socdo oo la dhihi karin waa dagaal jabhad iyo dawlad u dhaxeeya dagaal ahli ayaa ka socda dalka Itoobiya Abiy Ahmed adayga iyo maartay askarinimada unba ku sintay haduu maanta aan la siyaasi maartay wax garad ah oo maartay tacliinta iyo cilmiga iyo hogaaminta uga soo baxay kuliyado muuna inta la sii joogeenba hawsha markuu arko wuxuu dhilaa wartan hadan xal loo heli way kala tagaysaa hal daba qabta ayuu dhilaa laakiin asaga askarinimada iyo inta askarta ku hareeraysan iyo kaaraha iyo beebega wareegay markuu arko uu dhaasho adduunka wax ka awood badan ma male intaad waxaan haysatana wixii ku soo hordeegay wixii ku soo fiiray way leefayaan umba asaga ku jirta marka hadaan u guda galo ra'iisul wasaaruhu talaabooyinka qaaday iyo madaxweynaha uu xilka ka qaaday iyo waxyaabaha uu u cuskaday oo xilkaasi uga xuyuubiyay horta madaxweynaha xilka laga qaaday waa madaxweynaha deegaanka Gambeelaha waay madaxweynaha xilka laga qaaday waxaana la magacaabay madaxweyne cusub oo naag ah ayaa loo magacaabay waxaan arkay baraha bulshada oo Soomaalidu aad ugu qorayaan ma laga yaabaa deegaankeena inta xilka laga qaaday in naagna loo soo magacaabo rag waan ku jabnay in islaamna loo soo magacaabo oo deegaankeena ku soo dhaweyn islaam madaxweyne ma laga yaabaa maadaama islaam badan oo siyaasiyiin ah ay soo joogan oo Soomaali ah oo maartay dawladnimada ku dhex jira iyo kuwa dawladnimada hore ka soo shaqeeyay ay jiraan marka ra'iisul wasaaruhu waxa uu cuskaday wuxuu yiri dibadbaxyo ka dhacay Gambeelle oo rabshado watay oo dad badan khasaare ka soo gaaray iyo sidoo kale maamulka uu sheegay inay si xun u maareeyeen oo dabka ay sii galaysan arinta awgeed aad u dajinnabiin oo wuxuu yiri dhul ay dadka danyarta ay deganaayeen oo ganacsi wax walba ay maamulkan damceen inay burburiyaan oo gataan oo ay ganacsatada waaweyn ka iibiyaan dadku halkaas ka kacdoona ka bilaabeen marka maamulkii markay cagta mariya cagaf geliyay dadkii suuqleydii iyo dadkii dhan baa kacay markii dibadbixii wuxuu gaaray gobolka kale u soo gudbay caasimadda Gambeelahana ay dibadbaxay ka dhacayaan markii ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri arinta awgeed ayaan talaabada u qaadnay oo ninkaas aan xilka uga qaadnay oo gabi ahaanba maamulkii Gambeela loo kala diray maamul cusubna xalay Addis Ababa looga magacaabay marka maxay ka dhigan tahay inuu ra'iisul wasaaruhu uu magacaabo madaxweyne
madaxweynaha ognahay dalku waa federaal dalku waa deegaanadu waa rijo kala joogaan wuxuu leeyahay golo dhexe guddi fulin baa leeyahay shacabka wax dooran jiray madaxweynaha duu ra'iisul wasaare doortay gabiyaha meesha waxa ka baxay xuquuqda shacabka xuquuqda xisbinimo xuquuqdii maartay ay dawladnimadaas ay jiray lahayd meesha ka baxay oo waxay noqon maadaama kan intuu magacaabay ay u hirgashay hada kuwa badan oo magacaabay noqon oo iyagana uu dhaho la shaqeyn iyo amni la'aan uu dalka ku soo koriyo musuqan ku eedan xilka uga qaadan dhayn meeshii la rabay inay golaha dhexe ay ka fadhiistaan iyo guddiga fulintu oo ay u arkaan in loo baahan yahay in isbedel deegaanka iska dhaco ay codayaan cid rabaan ay keenaan dalka la shaqeynaysa laakiin hadii ra'iisul wasaare gaadhay baash waxa ku soo biyo shubtay wixii laga digay Tigreer ay hore uga diideen Abiy Ahmed xamaarana ay uga diiday qowmiyadda dalka Itoobiya ay walaac ka muujinayaan dalkan inuu hal nin gacantii galo ee Itoobiya ku soo socoto oo Abiy Ahmed hadda inuu cagta saaray marka arrintan waa arrin Itoobiya xalqa Itoobiya ilaa maanta waxa laga hadlayay ra'iisul wasaaruhu sharciga dhahaya dibad bax dhacay iyo dan yar la barakiciyay oo maamulkaasi dana interest uu lahaa uu u barakiciyay ay dibad baxyo ay ka dhasheen iyo madaxweyne xilka ugu qaaday wax suurtagal ah ma wax la maamulkaas ay rabaan wax xaliyaan hadda waxa dhici karta waxa ka fudud in la dhaho sarinta sharciga oo hay'adaha amniga intii la adeegsado hay'adaha amniga ay ka howlgalaan oo dadka ay dajiyaan ama maamulkaba si ku meel gaar loo joojin laho golaha dhexe guddiga fulinta la fariisiyo ayagu ay madaxweynaha keenaan taas ka qor badan laakiin ana xilkiga xayuubi ana ku soo magacaabay tan ana kula dadkaasi waa inay isdifaacaan laakiin markii ninkaas la magacaabay ninkaan xilka laga qaaday gobolka Gambela dhan dibad baxay qabsad جميل محان سود وين لكن ما سود جزر زوار لما دين أنا حق ولا أنا وحنا سكبت الوحنا كان زنا تيود بحيم وين بديان وكسود وين نكان مدة يربو هذا اليوم مدحوينها وأنتوا أبي جوجب ولا شقينا وضي مذوق بدنا ماشي في الديه ما تلفت والحوق بدنا وان نكاس وان نك حلقة لقى هذا مركا هوشني وهولتوا بكسر عصبوناتي معارض بدن بحد وحيله دور الزوار ورت الزوار هو حلوه ويري ما أقبل دور النبي يري نن ما ارتاين حل أنتوا سكفر ودتك دبعتيه إنه أسوي مركز تا وما ارتاح وحيري وما يبيرش أنت وأسوي وهرسل قلنا عملنا ناس أم يسمعنا ديس إن شرع كنا قاعد كلام أيلو دين كلام وما لك سأيو أوجد دلوقتي حير مرمر وحجري كرتا أنا وشرع أنا حق ولا أنا وحكي قالنا تيبه هيك شيء كوا بدل ما الله ينكجره الحيوانات بدل ما الله ينكجره ولو حلوا يا مدحوينه ياشر ورمضة يا Soomaaliya ayaa loo yaabay nimankaas oo Abiy Ahmed uu ku tuunsan yahay inayna ka soo bixin amaartay sidoo xisbigu wadada u adkaysan lahaa xisbiga BB talada haya waxa la aad buu u liitaa xisbiga dhan awood waxa ku soo koobantay xafiiska ra'iisul wasaaraha dowlad deegaanada way ka soo dhamaatay dowlad deegaanada uu iska tashay ganacsiga iska samaystay amniga iska samaystay duurkiisa iska galay hadda madaxweynaha Oromiya waxa lagu leeyahay jabhada la shaqeeya jabhada awlada asaga members ka leeyahay وحكمت ياهي جودي فلنتي قال هذا حبا هذا الشيء قال يا محلي سكر سودا وقيب قال أو حركة وحول بلوية أيوة رسا حاجة نبي بكرة شقية وعلي هاي نكن حكود دينا يا بالي نكن لما مجرسها واجي أي دورمي يجيب الدحين وين كجري نمك تبي يلا تيسين لما مجرس وجد تكسر ولا يو وأنا بكر ما وحيا لها أذكر وجه علم وجد ولا يتيب يلفت حولي نقول لا لكن أنا قعدت كمان لا ينيجي واللي يقول سنة هذيك كمان لا ينيجي marka ninkan xulaya taariikh ma ku raacsan wuxuu leeyahay dadka naga uma raacayna dawladda Itoobiya oromadana waxaan naas nuujinaya iyo jabhadan iyo waxaan isla weynka oromada ay leeyihiin anagu hadan oromanahay saddex xuquuqoodan Itoobiya leeyahay jira oo shacabka Itoobiya leeyahay oromad ku dooda waxay leeyihiin saddex xuquuq leeyahay first horta anagu waxaan dadka ugu tirada population hadaa population ugu tirada badan dalka Itoobiya waa inuu noqdo majority iyo minority anagu inaan majority noqono oo dalka luqadii aan yeelano calankii aan yeelano caasimadii aan yeelano saddexdaas ayaan xuquuq u leenahay iyo oromadu ku doodan markasta oo fagaarayaasha siyaasadda la yimaadaan Abiy Ahmed waxyaabaha ay uga soo horjeedaan ayagu xilka iyo Abiy Orom yahay waxay uga soo horjeedaan waxay leeyihiin dalkan qolo kasta oo timaada isbedel bay sameyn jirtay calanka bedel jirtay migista calanka soo taqaana waa kan hada faano wadato TPLF calanka Itoobiya sameeyeen waa kan hada Itoobiya Abiy ku dhaqmo waa xidigta la waa federalism ka turjumaya waa marka waxay leeyihiin oromaduna anagu markaan nimid aan halkan qabsanay Abiy waa inay isbedel timan aad samayso isbedelka samayso wuxuu yahay waa inaad calanka bedesho calanka maxaad soo gelin calanka waa inaad Oromiya aad calanka Oromiya aad ka dhigtay intiisa badan baawarka qowmiyadaha kale Itoobiya meel ka soo gelgelaysa astaamahooda laakiin calanku waa calanka oromada noqdo caasimada Addis Ababa Addis Ababa yaa baxay Axmar wala baxday caasimada maxaa la jiray markii Oromiya tuulo Oromiya markii aan jirtay waxay ahayd Finland وأنا في فنلندا سوء علسو وعاصمة إثيوبيا في فنلندا
oo dib loo celiyo dhahdo wixina laga dhacay dad Oromanahay ayaan maanta sababta sharci baad awood baad u leedahay baarlamaanka Itoobiya dad wareer coday way codanayaan guddiga fulinta asxiya dhag wax walba yes waay sababta adaa sharci gacanta ku haysta adaa Oromo gacanta ku haysta intaaba abigu ka diiday labadan qolob sidoo wuxuu ka diiday waxa waxay dheer anagu luqadda Axmaariga kuma hadli karo ceeb baan ugu tahay nimanka aan la soo halganay aan iska xoreynay luqadooda kuma hadli karay dhantay Oromadu maxaad ku hadlaysaa af Oromo ku hadlayna ama xafiisyada dawladda Oromo lagaga hadlo oo luqad dalka ugu noqoto hal dhoo qabiilka ugu dheersan waay hal dhoo hadii kale luqad kale dalka loo yeelay ayaan taa dood bay ka qabaan Oromo afguduudga kulli waxa weeye qorshahoodu ma dhawa hadii bay ku soo ogol yahay qodobo kale oo ay noo laaban yihiin bal shirkii ka socday magaalada Makala ee deegaanka Tigreega yani bal dib baynu u qoraansan doonaa laakiin waxaynu ku horeey doonaa arrintan soo baxaysa ee warbaahinta dalkaas Itoobiya inta badan bay wax ka qoraysay inay balde horta wixii iyaga ka dhaxeeyaba dib inay u dhigtaan laakiin ay u midoobaan sida xukunka looga tuuri lahaa Abiy Ahmed arrimahaasi qaar baa qoraya warbaahinta dalka Itoobiya inuu barnaamijkaasi jiro maxay ka waraadeen horta farqiga waxa soo baxay muuqaalo nimanka TPLF oo ciidamo aad u tiro badan gaadiidkan loo gaariyahan uraalka loo yaqaan ciidamada Itoobiya inta badan raacaan waxa la arkay gaadiid lagu qiyaasay ugu yaraan 100 gaari ka badan oo uraal ah oo ishaadu inta ay qabanayso leen ku jira waxa ay u jeedaan dhanka xuduudka Axmaarada soo baxan ayagu waxay leeyihiin ammaanka ay soo ciidamada xuduudaha loo daabulayaa bay leeyihiin muuqaal noocaas ah soo baxay marka muuqaal waxa korka laga qoray in ay Axmaari iyo Tigray la joogo waqtiga ay xilka ka qaadayaan ayagoo dib ugu noqonaya story hore ee ka dhaxay Axmaari iyo Tigray ee magacoodii Aabasiiniyiinta ee dalka inuu dal ay labada qowmiyadood kali ah wax lagu xukumo dejin jiray in maanta waqtigeeda la joogo inuu laabto marka waxay leeyihiin ciidamadan waa ciidamo Tigray ah oo dhanka Axmaarada soo jeeda laakiin ay Axmaaradu ay ku faraxsan tahay sidoo kale siyaasiyiinba waxay leeyihiin iyo diblomaasiyiin Itoobiyana waxaa jira heshiis aan soo shaabixin laakiin u dhaxaya Tigray iyo Axmaar oo ah warsidan kuma sii noolaan karo sidana dalka kuma sii fiirsan karo Oromo oo intan aan waqti siinayna way nagu sii salbalaarsan dibna kursiga looga saari karo aqliga Oromaduna de waa ani mooyeen cid kale ma taqaan waxoodu waa anu ayaga waa ka baahan bad ayaga waxba is gaarsiin karin ayaga dhaxooda ayaga baasho ay ka oomayin waqti adduunku ku dhamaanaya marka shirar waxa socda baa dalka dibadiisa oo ay ka shaqeynayaan diblomaasiyiin iyo rag aqoon-yahan oo labadan qowmiyadood ka soo jeeda oo u kala tabqaadaya inay dagaalyahanadu ama labadan qowmiyadood ay wax ay heshiis ku yihiin la sameeyo wax heshiis ku yihiin waxa waaye in haddaan Abiy aan la wada dagaalano dagaalka laga miisaan Abiy aan la wada dagaalano Addis Ababa aan tagno laakiin yayna ina dhaxan dagaalka dhac inagu haddaan xukunka qabsano miiska wada halkaas ku sugnaan TPLF waxyaabaha Axmaaradu ay ku aamin lahayd waxa waaye markii ay Mengistu ay xilka ka tuureen inay ahayd u maray 1991 markii xilka ka tuureen Tigraygu dadka dhan way laayeen Itoobiyaanka mayna u naxariisan nimanka Axmaarada godka ku gureen hata waxa jira boqolaal saraakiil ah oo Axmaara oo saacadan jaan cilmi la dhigin jirin oo in la dilay inay nool saacadan la sheekin laakiin way dhintaan sababtoo waqti dheer ba ka soo wareegay oo ay laayeen gudo ay ku gureen ma jirin marka nimanka Tigray Axmaaradu waxay leedahay hadda Abiy Ahmed annagu heshiis baan la galnay heshiiskaas wuxuu ahaa heshiiskii Tigray loogu heshiiyay laakiin Abiy balanta uga baxay Axmaaradu marka hadda laba istusaysa war haddaan Tigray la heshiino oo xukunkii wada ridno oo Abiy horta uu dhaama waxaan ka wada Abiy hadii Oromo la dhaho iyo hadii Tigray la dhaho anigu waxaan aaminsanahay fikradayda inay Tigray u dhaamaan qowmiyad kasta hadii Axmaar xilka qabato dhibka ay u geysanayso Itoobiyaanka kale Tigray xilka qabtaa dhaama hadii Oromo ay qabanayso Axmaaradu waxay aaminsantahay inay Tigray u dhaamaan wax walba Oromaduna waxay aaminsantahay Axmaarada inay Tigray u dhaamaan horta nimanka Tigray maxay markaa dadka Itoobiya ay laga sameeyay inay gob ahayeen inagu ma noo darnay Soomaalida gungun dhashay xageena ka ahan laakiin Itoobiyaanka kale ayagoo leeynaya dan saa horumarka iyo barwaaqada iyo lacagta way socodiyay dhismo dawladnimadu way shaqeynaysaa wada aragtay baxardaan wada aragtay waa tagtay quruxda wada aragtay sababta caasimada deegaanka Axmaarada aad moodaysid dhaqaale adduunka dhan la isku keenay wada aragtay Nasrid caasimada Oromia aydan waa aragtay jidkeedii iyo dhismaha qaab u dhisan yahay waa dhulka aragtay aad London mooyay meesha dhulkan nimanka Tigrayga dadka way u hagar baxmayna qowmiyad ay
qoomiyada kale ay ku istaageen waxa qoomiyad inaga Soomaalida ah oo inaguna dagaal ba kula jirin nimankan mayna aqbaleen markay yimaadeen qoomiyada kale la shireen inaga aan markay dadka qabsadeen qoomiyada kale intuu yimaadeen ay la shireen dhaan waraadoy anagu nimankan xoog baan iskaga dulqaadnay Axmaarada Oromada iyo wixii isla socday Ingiriiska la socday dalka haystay xoog baan iskaga xoreyn laakiin idinku ma heshiina oo dalka ma wada dhisana qolada kale dhaan farta ku fiiqaynaga inagu waxaan leeyahay warbaashi injirleeyda wayaanadan deegaanaga anaga ka saarayna maxaan kala heshiina waa qabba ugu jiri Soomaalida waaga shaqeynaysa dadka Soomaalida qabba ku jira oo waagi dawladnimada Soomaaliya wixii waxba Soomaaliyeed waxba loo saxabatumi jiray inaga wixbana dhaafiyay oo hadan waagi intaan iskala heshiin lahayn waxa laga yaabaa joogto in kasto waxyaalo badan halganku waxyaalo badan uu badbaadiyay oo ay kamid in luqadina laga bedelo si qoomiyad kale ay u ridoobeen in maartay dalkeena la qabsado si anfarta iyo Oromada loo qabsaday baashada si dhaxdegta la garin cunuga Tigreega iyo cunuga Axmaarka iyo cunuga Oromka kala garaneen inagu halgankan waxyaabo badan oo baajiyo waxa diinteena badbaadiyay sababta inagu meena soo dhaxgalin ciidan ordayo dagaalamay ma nooyman jiray ciidan kaana wuxuu nin dagaal ku jirana kuma saameynay laakiin hadii aan qori dhibin aan hoos jileen ma tasameeyna hadaan dad badan oo Axmaaro waxa arki lahaa Soomaali oo aan hadana soo garin baan arki lahaa oo dhila jiziyada Soomaali baa la bedelay yaa la baasho Soomaaliyeed ka tigleen halkan faa'iidooyin gootay taasi ahayd dhibaatooyinka wataan waxa inuu horumarkii iyo wixii iyo aqoontii dhamaan bayna ka hadnay dalka Itoobiya midaas ahayd laakiin maanta Axmaarada iyo Tigreega waxa la leeyahay heshiis baa u socda heshiiskaasna waxa way abiin xukunka laga tuuro kadibna awood qaybsi la sameeyo barnaamijkaas socda hatta Tigreega shirka ay ku jiraan maalinka go'aanku soo baxo ee warmurtiyeedka la soo saaro ee madaxweynaha Tigreega la doorto golaha dhaxdib loo doorto guddiga fulinta la doorto gudoomiyaha xisbiga la doorto iga qor Tigreeg wax aan dagaal ku dhawaaqdo laakiin xooga siyaasadda Itoobiya waxay laba isbar margeen Abiy Ahmed ma nimankan markay warmurtiyeed soo saaraan intuu cambaareen oo kale ilaa dib tawarma ay hadda mugti ma intuu cambaareeyo halka ka aamus doona xuduudka xidhan doona xudhay doona nimanka xidhka u jiran wax dagaal kuma qaadi doona ayagana wuxuu dhigi doona nimankaas yeen soo weerin oo gobolku intuu u soo tabaabuleysanaya ama u soo awoodeysanaya ama intuu barnaamijyo kale u soo xidhxidhanaya taageerayaal kale oo haduu doona intuu Eritrea la soo heshiiyo dib ugu noqdo oo wax walba afis iyo saamax ninku waa khiyaar badan wad ogtahay hadda asoo ku jilin birin ku qosi jilbu dhigan intuu asoo diyaaradu kaliya iska raacay helicopter iyo asmara ka dig jilbu dhigan odaygi ku dhadhay leef inta dambe la siyaasadiisa meesha ka gashay Abiy jilbu ka dhiganaya ma intuu soo tabaabulaysanayo oo tuka aamuso iska aamuso oo xidhka u jirto oo wax dhaqaalaha ka goosto iska aamus doona badin mise weerar buu qaadi doona sidii wasiirka warfaafinta oo maalmo shalay sheegay ee uu dhahay sareeyta sharciga ayaa wax walba ka sareeyay cid sharciga gacanta ku qaadan karta oo kaliya daraska gaar karta ma jirto dhahay talaabo ay qaadayaan dadku labadaas waxay leeyihiin waxay u badan tahay Abiy Ahmed intay warmurtiyeed soo saaraan wax una ku qanacsan weliba soo saaraan oo adag odayga dib loo soo doortay odayga Abiy nacib yahay uu rabin siyaasadda laga saaro oo meesha uu ka bixi rabay odayga dib loo soo doortay odayga Brazil iyo TPLF madaxda oo dhan dib loo soo doortay iyo Tigreega isku caanashubay qorshayaal waaweyn ku dhawaaqay Abiy waxay leeyihiin waxay u badan tahay waa sida hadda khibradu ay sheegayaan inuu ka aamuso in ay soo weeraraan inuu soo weerarin oo tabaabulaska lagu raadiyo taageerayaal u raadsado sababtoo ah dadku kii wax basuuriyeen ma horsaay kartaa waa loo yiri harko cadba loo kala bixi mise markay wax walba isku soo dabartaan may dhahayaan wanaagayna fursad siin oo nagu soo weerar inagu aan weerar hadda tabar xiyeen sababtoo hadda Axmaarada xabadku soo ridaysa oo ku soo dhacaysa baash Eritrea meesha ka baxday intuuna taaday Tigreeg aqalka Saliim isticmaalaan oo ah ninkan intuuna taageero inuu raadsin aan inagu ku ridno Abiy waa laga takhalusi dagaal xoogan baana dhici oo muddo dheer si dhowr bilood aan si qaadanin ayaa dhici doona oo adsaba la isla gali doona dhici doona Itoobiya hooyo abaha maartay ayaa ka dhici doonta marka waxay leeyihiin khibradu Abiy inuu cabsana badan Abiy inuu cabsado nimanka uu yaqaana aqoonna uu leeyahay taageerana hadda uma haysto sababta markuu weerarka ku qaaday ugu horeysay Eritrea uu ka haystay taageero wuxuu taageero ka haystay kale Imaaraadku ka haystay taageero Axmaaro dhab buu ka haystay Axmaaro oo 35 milyan ka badan oo liyugeed iyo faanadeed iyo shacabka soo socoto waa ka ogeyd ilaa birta canjarada ka soo ursan gobolka Tigreeg tabir canjar meel ka haysteen ee magaalooyinka marka wixii oo dhan hadda maanta meesha ka baxan Tigreeg waxay u badan tahay inay talaabo qaadaan focus aad iyo aad baad u mahadsan tahay shirkan marka hadda maalintii labaad buu galay mise maalintii saddexaad shirku maalintii saddexaad maray buu maray
marka la qiimeeyay la isleeyahay halka waa ka soo bixi karaa bash albaabada u xiran sida ku sheegana meel laga soo gala Tigray male xuduudo dhow adkaysteen dawladda dimaanta awood leedahay maciida federaal oo jiro gobolka Tigray jooga intay farageliyaan bay albaabada xidlayaan sidii deeganka Soomaalida Cabdiilay markuu habeenkii intuu go'aa wasiirada shiriyay uu gacanta u taagay Itoobiya ka go'an ay u codeeyaan barnaamij baarlamaanka hor geenina yiri ayagoon gaadhin awrtay ciidanka militariga isku hareerayeen albaabada xidhan kaara lagu gooyay dadka oo dhagaxtoor aan jigjiga lagu kala cararay sidoo kale dhacay ciidan federaal ma joogo gobolka Tigray xuduudu way xidhan airportkii laga soo gali lahaana waxa la geeyay lidka diyaaradaha lagu rakibay hawada Tigray intuu shaqo soo caalay wax diyaarad dul markay waa dawlad gaar ah markii waxa sugtaa waa hadal abi ka dhanay xilka qays abi la dhahlama ma aqoonsan waa meesha ka soo yeedhan wakaas aad iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaal qaybaha sare ee Itoobiya inta badan barnaamijkeena kaga faaloono xaaladaha karkaraya iyo waliba isbedelada mugale ee ka socda deegaanka Amxaarada iyo waliba deegaanka Tigreega labaduba waa laba deegaan oo si weyn uga soo horjeeda xukunka haatan ay ormadu ku naaloonaysa ee uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed arrimahaasi waxyaabo fara badan ba ka soo jijeelay bal mustaqbalka Itoobiya dadka khibrada ka faalooda waxay ku tilmaamayaan inaysan huraynin dagaal kale oo dib uga qarxa waqooyiga dalkaasi Itoobiya oo lamid ah midkii 2020 ilaa 2021 ka socday deegaanka Tigreega ee dadka 1 milyan ku dhow ay ku gooriyoodeen gabi ahaanba dagaaladii halkaasi ka socday hadaba shirkan haatan ka socda magaalada Makale wuxuu noqon doonaa shir si weyn u go'aamiya masiirka iyo waliba mustaqbalka deegaanka Tigreega sidoo kalena go'aamiya kala baxa in qolada lagu magacaabo Tigreegu ay si weyn uga mid noqdaan ama member ay ka noqdaan dawladda dhexe ee dalkaas Itoobiya iyo in ay gabi ahaanba uu dagaal halkaasi ka qarxo aan la mahadin doonin oo ay noqon doonto Itoobiya midkii ay ku kala tagi lahayd imahaasi markii aanu kaga taagno bal xagga dhanka dawladda deegaanka Soomaalida maalintii shalay weerar xooggan waxa ku soo qaaday magaalada aan ilaahay ambaba xerada weyn ee Qulaji ee qaxootiga Soomaalida ay ku xareysnaayeen xoogag Oromo oo la tilmaamay inay gabi ahaanba gacanta ku dhigeen deegaankaasi iyo waliba deegaanka Kaagdhow inkastoo dawladda deegaanka Soomaalida aysan ka hadlin haddana bal waxyaabihii ugu dambeeyay iyo sidoo kale deegaameen cusub oo ay wado nimankii lagu magacaabi jiray daraakirada oo in dhawaalaba khayaamo iyo waliba dagaal toosa ku qaadaya dadka shacabka ee ku dhaqan galbeedka gobolkaasi sita ayaan si kooban waxaan wax uga weydiin doonaa inta ayna gaarin qodobka ku saabsan shirkii maalintii shalay lagu soo kala kacay ee Itoobiya ay ku doonaysay damaceeda waalan ee dalka Soomaaliya ay ku doonaysay badaha inay ku qabsato ayaan bal kaga faalloon doonaa dawladda deegaanka Soomaalida bal maxaa ugu dambeeyay weerarka shalay ay soo qaaday iyo waliba arrimaha maxaan ku dhahay galbeedka city maxaa ugu dambeeyay haatan ka socdo haddaan ku horeyno dhanka iyo xerada Qulaji qaxootiga aad ku tiro badan Soomaalidu ku xareysan yahay ama buurahan silsilada ee dhankan Baabili dhaca qolada Oromadu waa kii ay shalay soo duushay wala duulaanka Oromadu mid ma ahayn ciidan oo kaliya golo wasiirada la socday golo wasiiro iyo xataa ciidanka Baambeyda ayaa soo raacay duulaanka Oromadu wuxuu ah markii hore ciidan iska soo hormariyeen ciidanka markii soo dadku way qaxeen waa la yaab waxaan ciidan oo yaacaya maxay ahayn xabadaha aan badnayn way rideen kadib markay rideen meeshaas waxa ku taala meel barxad weyn ba ku taala barxadii halkaas la isku yimid waxa dhulkana deegaameen laga rabaa Baambeyda durban ku garaacay golo wasiirada la soo dhaweeyay xaflad yar ba halkaas ka dhacday xataa waxa booqatay warbaahin dawladda deegaanka Soomaaliya laga leeyahay oo madax banaan ayaa u tagtay xagee u tagtay meesha ay xafladda ku qabsanayaan baa tagtay Oromadu Qulaji agteeda Qulaji soo dhaafeen mid dhanka ma soo dhaafeen waxaad raadinaysaan ba ku dhahan waxay dhahan dhulku waa dhul Oromiya Soomaaliya deegaanka mid Oromiya ka tirsan ba ku dhahan ciidanka Soomaaliduna maalin ka hor bay meesha ka baxeen ka guureen ciidanka Soomaalida maalin ka hor ay ka guureen meeshaas marka waa la yaabay dawladda deegaanka Soomaalida saacadan meena ka hadlay dhulku waa dhul la deegaamaynayo ciidanka Oromada khalkhal gelin bay dadkay fiirinayaan inay qaxaaneen kale dad badan ba carro oo dulka galay wixii dadkii u istaagay caadi waxay dadka istajiya golo wasiirada la soo dhaweynaa ciidamadana meelay socdaan halkaasayna iyo barkulanku ka dhacayaan kadib waxaa yimid gaadiid badan oo tiknika ay saaran tahay iyo golo wasiiro halkii xaflad lagu qabtay muusig baa lagu garaacday waxaa la yiraahdaa halkan deegaan baa laga rabaa in golo wasiiro ay dheeynayaan xogta rasmi markay raadinaysaa saas noqotay waa Qulaji waxay hoostaysaa Oromiya maalin batalaabo ay soo qaadayaan marka baashu way socotaa wakaas aad iyo aad baad mahadsan tahay bal haddii daawadayaal aynu xogihii ugu dambeeyay
aynu ka fiirino dhanka dalka Soomaaliya maalintii shalay shirki lagu soo kala kacay Ankara maxaa ugu dambeeyay shilow yow faragodo warta shirki Ankara xogo badan ayaa ka soo baxaya oo kala duwan waxaan ogeyn shirkaasi in lagu kala kacay la sheegay in wareeg saddexaad la isku soo laaban doono labadii wafdi ee kala hogaaminayeen labada wasiir arrimaha dibadeed ee dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya inay soo kala tageen xogagii Soomaaliduna inay Qaahira ka dageen xogagii Ethiopiankuna in la sheegay inay adsaba dib ugu soo laabteen xogtaasi markii ay sidaas ku soo kala kacday xog kala diya gadaal ka soo baxay Ethiopia sadoo soo tahay war saxaafadeed ba ka soo saartay habeenimada xalay saqdhaxadii ay waraaq wiiftaa soo saartay oo kaga hadlaysay wiilan waxa hadlay afayeenka waxa hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hadashay Ethiopia ayaa waraaq soo saartay waxayna kaga hadashay wixii halkaas ka dhacay iyo waxa lagu heshiiyay iyo maartay sida Ethiopia ugu rajo weyntahay inay bad hesho ayay ka hadashay waxyaabaha la adan waraaqda Ethiopia ku horeeyo waxyaabaha la yaab kale aan waraaqda ku arkay waxa kamid ah inay Ethiopia leedahay waxaan aad ugu rajo weynahay inuu wareegga saddexaad la heshiin doono Soomaaliya Ethiopia ay ka heshiin doonaan khilaafka ee soo kala dhaxgalay ee badaha mala bad Soomaaliya oo badaha leedahay waa badanada iyo badiina khilaaf soo kala dhaxgalay inaan ka heshiino sidii badda aan u wada nacafisan lahayn oo Ethiopia ay xaqeeda u helayd idinku xaqiina aad u helayd halba Ethiopia mayna xusin Soomaaliya wax ka rabna waxayna in laga heshiyo khilaafka soo kala dhaxgalay Ethiopia labada dal khilaafka dhanka badda ka soo dhaxgalay in la xalliyo yaan ku rajo weynaa wali waxay u mahad celiyeen dalka Turkiga oo madaxweynaha Turkiga wuxuu aqoonsaday ama uu goobta ka qiray ama uu Soomaaliya la wadaag Ethiopia la wadaag inay lagama maarmaan tahay labada dal inay xalliyaan khilaafka badda oo qolob dhaxgalay la siiyo meesha waxa kaga cad Ethiopia fiqra soo qoray fiqra mugtay shirku ka qayb galay mugtay Ethiopia xogteeda dhan way meesha wixii laga hadlay ooga wuxuu yiri ma aqbalayna ku qabso ku qadimaysi laakiin war baan ku sheegaya hay war yaa ku sheegay ku soo gabagabaynaya hay wadiga maqashar malaynaya mahmaadaas ah oo la dawaco heeraan ogahay baan guurin hay heeraan ogahay yaan guurin hay yani habeenkii bay waxay ka cuntay harkii bay ka cuntay hay harkii lagu guuri jiray harkaha laga sameyn jiray ayay ka cuntay hay shirka muuqaal laga duubay baan arkay hay rag baa fadhiya waan gartay ragga fadhiya saddex nin oo kamid ah aad baan u sulugay bilaantooda maya waa saddex nin oo jawaasiis Ethiopia oo Soomaalida xageeda ka socdeen fiqriga hogaaminay hay waa Xuseen Macalin la taliyaha amniga qaranka waxa uu ninkan ugu magac dareen waan gartay xasan meesha keensan hay waa jaajus u shaqeeyo weeye dalka Ingiriiska u shaqeeyo weeye hay waa jaajus weyn weeye Soomaali in la kala dhantaalo mushaar badan buu ku qaataaba hay waa Ali Balcad وزير الدولة وحمارك أصل كاس هو أصل كيس وحالي له ومحار بلده هاي نمنكي تيتي لي تجي هاي مركي بقرنسا كونفورت الصومالية أيوكو أبتر سلابة لله هاي هالكاس من أحمد رجل بناك تمدي هاي أيوكو أبتر سلابة وانجرت كصدحنا وفيصل روبلة إنا لله فيصل روبلة هاي وأنا TPLF وTPLF العقد بكقاعدة شريبة لكن هذاك بوحن كهلا هي حلقة فيصل روبلة درس ولا درته أكيد جودو كشرابة فيصل روبلة ها فيصل قوم سياسة دولة صور حقله صور حقله حسن شيخ وحلا له قشر ورسنا يه هاي فيصل روبلة وأنا كتيب في العقد فرح بدك كقاعدة شري دفاع شري عبدي إليه النظام كتيب في دفاع شروي وانجرت نكاسو وحويان دمنا قصر راعي ما هي وقال وين واد كسرت وقال وين بعدك ويدي ولا جير كتاب قرآن ما حكم كذا خلص لا صومالي ويدي بها كتاب قرآن نقول وحكول الهاوي أي هذا هو تشارلز إثيوبيا وانجرت مركا حسن شيخ القدر راعبة حسن شيخ القدر لا ساق مدين ها حي حسن شيخ لفتجيسو فربا بقولن فربا كوجا حكت ولي بس صباح يسوحويان إثيوبيا حيلها سيدي أذكر صار نقول الله يبان كلا شقين إنها بدل نوع قلو حسنو حي يعني حسن مملوك وعبرنا حسن وحويه سيدي سبا حسن سيدي سبا وحدة تلمانو كنت تلمانو ما قرنا وانجرت وحدة تلمانو أنت كنت تلمانو ده حسن الشيخ محمود وواحد شارشوس هدوه هو ضعف حي دل بربري هدوه هو ضعف إيمان الله هدوه هو ضعف دل حراش هدوه هو ضعف قبوري وكفقنا هي في كو يلا باتم كن أو قبورود نكفقدي
وحسن ها حي hadda waxyaabaha soo baxay waxa kamid ah in dekadaha la dhisi doono asagu qandaraaskiisa qaadan doono حي marka Soomaalida waxaan u sheegaynaa Soomaalidu sida ay loo dibin daabiyeenay horta uma alalaha laakiin Xasan iyo teamkiisu dalka way xaraashayaan dad badan baa diidana oo wax badan oo sheegi jiray ogaaday dib ogaaday wax badan oo sheegi jiray ogaaday dib ku ogaaday marka ummadda Soomaaliyeed Ilaahay ka badbaadiyo dhagaraha loo maleegayo iyo munaafaqada maxaan ku dhaaf villa Soomaaliya kuwa jooga iyo wadamada dariska ay maleegayaan Ilaahay ka badbaadiyaan sidoo kale waxa jira Faragodow xog kale oo ayada isla xogtan ah Ethiopia oo ku dheehan oo dhaxaysa baa jira 19 September maadaama la yiri heshiis saddexaad wareeg saddexaad ee la isku soo laabanaya dawladda Turkiga ay tiri waxaan ku rajo weynaa in lagu guuleysan doono xog dhaxaysa kale baa jirta 19 September ayaa la ballamay 19 bishii soo socotay sagaalaad ayaa la ballamay waxaana laga yaabaa inay ka soo hormarto shirku inuu ka soo hormaro oo arrin degdeg loo baahan yahay ay timaado maadaama dawladda Turkiga waqtiga cayimtay waxa laga yaabaa Soomaaliya iyo Ethiopia inay ka soo hormariyaan dawladda Turkiga ka codsadaan ka hor in heshiiska la saxo waxa la leeyahay laba warbaahinta waa laga qariyo horta xogta rasmiga ee hadalada sheekada dhaxmaray nimanka waa laga dadka warbaahinta waa laga qariyo dadka waxa laga baqay inay dad badan ama dad Soomaaliya ka cadaan muujiyaan ayaa laga baqay laakiin waxa kaliya dadka loo soo bandhigay waxay warmurtiyeedki ay laba qolo nin walba warmurtiyeed waxa laga heshiiyay iyo warmurtiyeedku isma qusayaan bad sababta warmurtiyeed marka ka hadlayso nin walba sida aad jeceshaad waa dalka u yahay laakiin warmurtiyeedku iyo wixii lagu heshiiyay kala duwan fiqaas wuxuu u hadlay oo kaliya inay Soomaaliya midnimada laga maarmaan tahay in ayna ogolaaneen in dhulka lagu xadgudbo waxaas ku hadlay Ethiopia way ma celisay dalka Turkiga inuu dhexaadiyay siina dhexaadin doono Ethiopia ay ku rajo weynta iyadoo inay nuqul badeed inay hesho yakaanan laakiin xogta rasmiga waxa la leeyahay inta badan barnaamij laga heshiiyay laakiin warbaahinta laga qeynaya laakiin marka ugu dambeysay saddexaadkii la soo bandhigi doona waxa la leeyahay waxa laga heshiiyay in ay Ethiopia bad hesho bad iyo bari ay hesho Ethiopia horta waxay ka biyadiiday totally wax la dhaw ganacsi cashuur laga qaadayo cashuur bixin waba diidaba totally waxay dhan dooda midaas laguma mafuri karo waan ka laaban karnaa heshiiskii laakiin heshiiska markay ka laabanayaan waa inay bad iyo bari ay Ethiopia ay Soomaaliya saxiixdo warana walba ku sheega ana waxaan leeyahay Soomaaliya waxay difaaceen ha نور بقولي سلا صباح نور بقولي سلا صباح حسن شيخ محمد لوجه قد قدنا في الصومالي دح فداه مش حاجه لو زار يوصل امده هو ساسين ومصيبه امده لو صدري امده يوسف هو ساسين برنامج كنا انت كسو غبغبينينا سي شرغريا صاحبدينا لا wadaaga qaybaha dambana bal insha Allah wuxuu diblomaasiyada iyo wax far badan oo dalka Soomaaliya ku saabsan bayna ku qadariga doona haduu Ilaahay yiraahdo inta nadu ma kulmi doono mid kamid ah waxay ka tagayna sida ay nabadgelyo